haweenku waxay lafdhabar u yihiin horumarka bulshada waana muhiim in ay door ku yeeshaan talada dalka. haddii aan dumarka la taageerin haddii aysan dumarku taageero helin haddii aysan dumarku awood la siinin dib u dhac dhaqan iyo dhaqaale ayaa dhici doona akhlaaqda burburi doonta bulshadu way muxuu ahaa dib u dhac baa ku imaanaya. shirweynihii qaran ee haweenka Soomaaliyeed waxay haweenku ka soo saareen axdi qarameed lagu mideysan yahay. waxaan ku heshiinay waa mowqif in midnimada dumarka Soomaaliyeed ay tahay muqadas inagoo matalayna dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka maamul goboleedyada dalka haddii ay noqdaan miyi magaalo qurbo joog gaar ahaan haweenka dadka naafada ah haweenka guriga jooga iyo haweenka waayeelka ah annagoo dhammaanteen ku midaysan mabaadi'dan waxaa naga go'an in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya lagu asteeyo go'aano aan shuruudo ku xidhnayn oo lagu cadeynayo sinaanta jinsiga xuquuqul aadanaha iyo awoodsiinta haweenka. marwada koowaad ee Soomaaliya maxay kula dardaarantay haweenka Soomaaliyeed? waxaan rabaa hal dardaaran oo saddex walxood la tusaaleeyo mid waa talo wadaag la yeesho gabdhuhu waa inay tashadaan isku tashadaan talabaad tusaale walaalaha wala tusaaleeya walaalka wixii fiican tusaale gabdhaha u jeeda saddexaad way qalaar tahay waxa weeye tanaasub waa qalaar yahay laakiin waa sabra isku tanaasula isku sabra. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu aaminsan yahay in haweenku soo saaraan hoggaanka iyo madaxda bulshada. qof waliba oo hooyo ah inta aanay shaqada kale bulshada iyo qaranku haysa bilaabin ka hor inay soo gudatay waajib qaran. wiil walba oo Soomaaliyeed oo meel ka shaqeeya ama matala dadka Soomaaliyeed oo aan anigu ugu horeeyo waxaa ku soo dhibtooto hooyo